ergo salaadiin iyo ergo odayaal iyo ergo ganacsato iyo ergo culimo laakiin waxaa noo ka wahaydo maanta aan la kulnay ergo abwaano oo ka ergeynaya arrimo siyaasadeed iyo arrimaha dalka aad iyo aad baan u faraxsan inay abwaanada qaranka hawlaha qaranka markaa weliba iyaga aad iyo aad baan guriga ugu lahado waa niman mar walba ilaahay hibow siiyey inay ka taliyaan oo ay dadka ku tilmaamaan wanaagsan markaa dabcan maanta ergadooda iyo hadalkooda waa u dhiganugnay aadna waa u xiisaynayso aadna waa u danay qodobka la isku yeela halkan waxay abwaanadu arrin ina wada hor taalla oo ah dhibaatada abaaruhu inagu hayaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu abaarta naga dulqaado ilaahay madar khayr qaba haynu abaartu way nagu culusta way nagu dheeraatay ilaahuma inaga qadka ilaahay naga maanta arrinta halkan lagu hayana waxay abaaraha iyo culayska lagu hayaan dhan walba odayaashu waxay ka hadleen abaarina waa jirtaa xaalkeena wada ognahay doorashooyin dhowna waa soo socdaan oo waktigooda taagan yahay maxaa la yeelayaa su-aashaasay la weydiiyeen mid waanaana way noo raaciyeen waanada way noo raaciyeen waxay niman iyo odayar baati haddaanu abwaanada nahayna waxaanu nahay dadka af soomaaliga dadka ka jeegaraya qof kastoo gaba isku daya ama hees ama buug maraa intan mu soo maraa halka fadhida hadday kaasi xiwaayan waxaa kama saxna markaa si aslubaysan dee ila waa niman yaqaano sarbeed waxay nahay miyaa waxaa kasii daysaan ku noqda waanu qaadanay odaya ku noqda taa waa idka qaadanay waanada qodobka labaad maxaa la yeelaya bayna dee abaarina waa taageen doorasha waa joogtahay waxaanu ku nidhi intaa idin baa ka fiirsan annagu waanu ku fikrinay arrintaasina waa arrin taalla sharciyeenu leenahay meelo laysu maray leedahay hab waliba si loo xaliyo leedahay horta dhammaanteen waxaanu isla qaadanay oonu abwaanadu ay noo soo jeedeen saddexda xisbina hore u qaateen horena ugu jireen nin waloo caqli ku jira oo dabqanaya maanta mudnaanta koowaad iyo hawsha koowaada qaranka u taalla waa gurmadka taakulaynta dadka abaar u hayso arrinta koowaad arrintaa maanta inoo taalla tu walba xagga daba maraysa horena anugu shirkii horena kasoo baxnay saasaan heshiisku ahayn horena xisbiyadu nin walba tabartiisa waa gurmanayay waayo odayaasha dalkan maanta hor jeegay waa nahay taarikh baa jiri doonta maalinba nin baa hoggaanka haya waxaa dadku noo ixtiraamayaan ay guddoomiyaana noo leeyihiin ay fadhiga noo kacayaan waa odaynimo markaa ninka odaygiina maanta abaarta isagay saarta culiskeeda taa waa ka midaysannahay haddaanu xisbiyada nahay iyo hogaamiyaashooda iskuna xaman mayno iskuna tuurtuuri mayno waa gurmadkii loo madaysnaan lahaa abaaru taana halkaasaan ku heshiiyey abwaanadu haddayna xusiyeen lagu waariyana waanu ka qadanay taa waa ka midaysannahay waayahay haddaba doorashadii iyada maxaa la keenayaana waxaan isla herinay waxaynu yeelaynaa taladaynu isu geegeynayna marka tala la helaa unbaa dee wax la hirgeliyaa taladaa waxaynu ku uroynaa nimanka la idhahdo commissionka waayo sharcigu iyagu siiyey markay xaalado kala yimaadaan inay doorashada ka go-aan gaaraan xisbiyadu soo jeedin bay leeyihin talay bixin karaan talada waxay tegaysaa commissionka ciddii walay kale hadashaana waxay tegaysaa commissionka waxaa waajiba markaa cid waliba inay u hoggaansato wixii kuma soo saaray saasaanu ku heshiinay xisbiyada qof waliba iyagu malaa mucaarad ku israaci doonaan labadoodii oo markasta dee iyagu way naga yar maaragtay ishayna u hayaano waxay isleedahay qolada dee xukuumaddu mar walbay korortaa wayna ilaalinayaan waana ku mahadsan yihiin ana ilaaliyaan annagu waxaanu maqbuulo unahay waxa wixii ka soo baxa commissionka horena waa ogolay dee arrinta hore loo fardoobay maxkamadana waa jireen farsamo sharci wax lagu saarana waa loo baahanyay markaa haddii aan la yidhahdo arrinta waxa lagu ururin doonaa commissionka war maxaynu yaalla abaar bayna haysteen wixii ka soo baxana waynu wada hoggaansamayna